isu quruxda badan in cuqdad la kala geliyaa ma qurux badna. reer Somaliland sidii u dhanyiin maanta Muqdisho joogaan sharaf iyo karaamo iyo milgaan ay ku leeyihiin loo soo dhaweeyay. hal shakhsi oon siyaasadna waxba ka ogeyn wax kalena waxba ka ogeyn oo maanta Hargeysa tagay jumeeru koob shaaha ka cabay wax weyn aan u maarko walaalimadu waa wehel naqura wadaagu waligoodna wali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabaday daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta joogtaan asxaabteeda Soomaali weyn aad iyo aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiinba. haddii aad hore ila joogteena waxa aan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay la joogidaada quruxda badan ee idila joogtid. haddii aad cusubteena waxaan ku leeyahay fadlan soo dhawow si aad weliba ula socoto barnaamijyadeeda gambaleelka furo oo aanay kuu dhaafin waxyaabooyin ku xiiso gelin doona oo aan kuu soo gelin doona. caawa waxaa halkan aan si toos ugaga hadlayaa xariga loo geystay walaalkeen Bilaal Bulshaawi. xarigaas oo ka dhacay magaalada Hargeysa. waxaan leeyahay Somaliland awal bugo baad ahaydeen sidii hore leedin yaqaanina dad goobaad ahaydeen dad maganta ku wanaagsan baad ahaydeen. intaana waa la isu kala gooshayaa. Soomaaliya iyo Somaliland way isu gooshaysaa wax ay kala yihiin ma jirto. bii waaye intii hore la lahaa mid baa calan xidhay na dambe ahayde maantana ma waxa la isku qabsanayaa shaah buluuga la cabay oo maamada hay naga tuurina. runtiina aad iyo aad baan uga xumaaday aniga oo dareenkayga cabiraya wiilkaas la xidhay ee walaalkiina. waxa lagula kacay khalad bay ahayd. haddii uu xidhayna ummadda Somaliland maxay tolo shacabka intaba waxaan ka codsan lahaa iyo dawladaba in walaalkeen Bilaal Bulshaawi lana sii daayo xorriyadiisana loo sii daayo maxay tolo loona fasaxo. reer Somaliland habeen iyo maalin intaa way socdaan. Soomaaliya u gooshayaan gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa. dadka Muqdisho u dhashay si aan loo soo dhaweyn baa loo soo dhaweeyaa. si aan ummadda shacabka ah ee isu caafimaad qabta ee maxay tolo isu quruxda badan in cuqdad la kala geliyaa ma qurux badna. reer Somaliland sidii u dhanyiin maanta Muqdisho joogaan sharaf iyo karaamo iyo milgaan ay ku leeyihiin loo soo dhaweeyay. hal shakhsi oon siyaasadna waxba ka ogeyn wax kalena waxba ka ogeyn oo maanta Hargeysa tagay jumeeru koob shaaha ka cabay wax weyn aan u maarko. calanka Somaliland baa Soomaaliya ka babanaya. intaasina wax laga soo qaado maaha. reer Somaliland xariga hala joojiyo. kii Muqdisho tagay waa la xirayaa markuu yimaado. kii u soo heesa waa la xirayaa. kii Hargeysa yimaado waa la xirayaa. kii maxay hay tolo idhaa waan tagayaa waa la xirayaa. Hargeysa markaama bahla galeen baa lagu tilmaami karaa. maxaynu odhan karnaa maanana waan xiraysa. anuu reer Hargeysa waxaan leeyahay gobonimadii iyo sharaftii ummadda shacabka ah ee isu caafimaad qabta ee maxay tolo isu quruxda badan in cuqdad la kala geliyaa ma qurux badna. reer Somaliland sidii u dhanyiin maanta Muqdisho joogaan sharaf iyo karaamo iyo milgaan ay ku leeyihiin loo soo dhaweeyay. hal shakhsi oon siyaasadna waxba ka ogeyn wax kalena waxba ka ogeyn oo maanta Hargeysa tagay jumeeru koob shaaha ka cabay wax weyn aan u maarko. calanka Somaliland baa Soomaaliya ka babanaya. intaasina wax iska saara. qadiyadu de waa barteeda waa lagu kala tegi karaa. labadii wada dhashaa kala tegoo kala dhaqaaqay casala laba dawladood oo horena u midaysanaa imikana kala goostay. qadiyadu halkeeda weeyaan. ummadda says jecel ee shicibka yaan la kala goynin baanan u odhanaa. rag tooda wata oon shicib u danaynaynin cidna u danaynaynin ummadda Soomaaliyeed iyay kala jarin. Soomaali waa Soomaali laakiinse qadiyad baa lagu kala duwan yahay. dad islaam oo wada shahaadanayo la ilaaha illa Allah Maxamedur Rasuulullah oo af Soomaali ku wada hadlaya oo af Soomaaliyeed ku wada hadlaya. reer Somaliland luqad kala samaystaan markaa saas ma laga wadaa. Bilaal Bulshaawi waan ka raali gelinayaa. arrinka dhacay aad iyo aad baan uga raali gelinayaa. taana waxaan ogahay oo qabaana raygaygana aan ku cabirayaa. ummadda reer Somaliland xariga loo geystay in aanay wax shaqay ku leeyin aanay jirin wax siyaasadaysan oo dawladana ay tahay. reer Somaliland waxaan leeyahay waa dadkaygii waan jeclahay
anigaa ka soo jeeda sharafta iyo milgaha iyo karaamada. awalba dad karaamala baynu hayn, dad ixtiraamka lagu yaqaanaynu hayn, dad sandaladiiya baynu hayn. in laga tago maaha ceebi inay hadhcad ku raacdo. anigay lama qurux badna miskiinka yareen siyaasad ka hadlayn ee wuxuu ka hadlayay jirin ee wuxuu geystay aanu jirin uu dhib uu geystay aanu jirin. koob shaha tiktok la soo dhigay. hankiinu ha dhaafo koob shaahana odhan lahaa. hankiinu ha dhaafo koob shaaha. shacabkuna waa shacab isjecel. waa la isu tagayaa, waa la isu dhaxayaa, waa la isu gooshayaa, waa la isu wareegayaa. kama cadadnaa siyaasi taagan, maxaa suxufi taagan, weli qof wax loo geystay miyaad maqasheen? habarta miskiinta dawarsanaysa hargeysa timaadaa kuma badbaadayso. awal sadee hore sidaas may ahayn. meel wanaagsan oo nabada oo martida jecel oo soo dhaweysa oo sooriyeysa oo ixtiraam iyo sharaf iyo karaamo lagu yaqaanay bay ahayd. yaa oo qofka imaada neefaf loo qalo. maantana miya Somaliland qofka soo hadal qaada hargeysa wadnuhu farta ku hayaa. talow maa lagu xuli, talow maa tegi, talow maad badbaadi, talow maxaa lagugu samayn. wallaahi waa ayaan daro. insha allahna waxaan rajaynayaa Somaliland oo sidaa iska bedeshay oo sideedii kusoo noqotay, nooceedii kusoo noqotay, noocan ma ahaan jirin in la arkaan rajaynayaa. walaalkii Bilaal Bilshaawina waan ka raali gelinayaa. dhammaan ummadda reer Soomaaliyeed ama reer Soomaaliyana xariga walaalkaya ku dhacay ee gefka ah waa mid aanu xaal iyo boolajiis aanu ka bixin doono hadduu allaha awooda leh uu idhaahdo. inta calooshu taagantiina waxaa leeyahay allaha caafiyo. inta dee caafimaad qabtan horebaaba dee sharaftiiyo milgaha iyo karaamada loogu yaqaanay waxaan leeyahay yaan la isku keeni durin. shacabku waa mid, waa dad walaala, waa dad mida, waa dad isku diira. Soomaali waa Soomaali haddayduni garan. runtii caawa aad baan u kululaaday. waan kululaaday weligay wax ku saabsan intaa la leeyay waxbaa la xidhay, waxbaa la rogay, waxbaa dhacay. weligay kama hadal. iska daa video aan soo hor fadhiista xitaa qoraal intaan soo qaaday social media xaraf kagamaan qorin. hase ahaatee arrinkani si arrinaan ka fadhiyi waayuu noqday. koob yaroo shaaha, miskiin yaroo koob shaahoo meel yaalla cabaya. shaah buu calan Soomaaliya lagu soo sawiruu cabay. oo qoodhin waa xeradiin ma waxaan laga hadlinbaa mase waxaan laga xumaaninbaa. war shacabku waa isjeceliyayaan la kala geynin. dadku way dad isjecel, waana dad ul iyo diira. ummadda yaan la kala geynin. nin siyaasi iyo ummadda ayuu kala geynin. qadiyaddu de waa halkeeda. Somaliland gaar bay u baxday. wixii 60kii dhacay waa lagu kala tegay. goonisu taag bay noqotay maasha allah. waa dalkayga waan jeclay, waan ku farxayaa. waa dad nabadooda dhistay, waa dad horumar samaystay, waa dad isgaadhay, waa dad wanaag samaystay, waa dad maanta Afrika oo dhan marka la isku daro ee Afrika la eego maxay ahayd toolayeen nabadda taala Somaliland number 1 bay ka gashay. taana ilaahay iyo ummadiisuna wuu ogyahay. waxaana taa kasbaday amaba sameeyay amaba isu taagay. horta waxaan shacab dhisin ma dhaqaaqaan. shacab dawlad kasta madax iyo mijay leedahay, laakiin wax wal oo kasta shacab uu ku dhisan yahay. hargeysa maanta xilliga doontaad maraysaa, xurriyad baad ku maraysaa. saacadda doontaad dhex wareegaysaa, xurriyad baad ku maraysaa. waxaasina waa ammaanka Somaliland dhex yaalla. Somaliland waxaa tahay dal la higsado, waxaa tahay dal la higsado. higsigii horumarkii Somaliland lagu yaqaanay waxaan leeyahay hore uga socdaa. shacabkan ayaan lagu mashquulin. walaalkii Bulshaawina ha la soo daayo. Bulshaawi xaal iyo boolajis ayaanu ka bixinaynaa haddaanu nahay shacabka reer Somaliland. waanaanu ka raali gelinaynaa. reer Soomaaliya oo dhan waanu ka raali gelinaynaa. waxaanu leenahay madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jiro. madaxaad noo saarantiin. aad iyo aad baanan idin wada salaamayaa dhammaantiinba. fadlan ha ka ilaabin channelkan haddii aad ku jirtid ama haddii aad i daawan doontaba. fadlan ha ka ilaabin inaad share tira subscribe-na aad saartid. wixii hadalkayga ama maxay ahayd toolay ra'yigayga dood aad ka qabtidna fadlikum commentiga iigu reeb.
waxaana kaa codsanayaa si aad ugula socoto waxyaabooyinkayga dambe inaad kambaleelka furata. meel kastoo joogtana waxaan kuu rajeynayaa cimri dheer iyo caafimaad qab iyo cibaado suuban iyo arsaaqad waasaca. aad iyo aad baana idiin salaamaya.